warkii ugu dambeeyay ee Kamaldaari waana soo qaadan doonaa oo ay caawa qayb ka yihiin waxyaabaha ugu dambeeyay kala iibsigu caawa. Arsenal waxay qarka u saaran tahay qaadashada ciyaartooyga William. Chelsea wuu diiday ciyaartooyga go'aankiisana wuu cad yahay. waayahay warka ugu dambeeyay waxay leeyihiin caawa William waa uu diiday heshiis 2 sano u soo barigtay kooxda Chelsea wuxuu yiri 2 sano ma doonayo ama 3 sano la iga dhigayaa hadii kale wan baxaya. warka ugu dambeeyay waxay leeyihiin uu soo warinayo wariyaha weyn ee aadka lagu kalsoonida badan yahay ee Fabrizio Romano wuxuu leeyahay Arsenal baa ciyaartooyga aad ku dhow wada hadalna kula jirta. Arsenal waxay diyaar u tahay heshiis 3 sano aysiisa William oo ay Brazilian ka dhaxgeeyaan oo Luis Baa ka horeeyay leeyahay Luis Baana ciyaartooyga khalkhalinaya. marka waxa leeyahay William hadda waxa wada hadal kula jirta kooxda Chelsea no waxa wada hadal kula jirta kooxda Arsenal. Chelsea wuxuu rabay heshiis 3 sano uu rabay way ka diideen 2 sano man ay ku raadinayaan waanu diiday ugu dambeyntii isaga iyo Arsenal ay had isku jeestay baa leeyahay. marka Arsenal xagaga dambe koox adag baa loo dhisayaa ciid wixii ay ciid muwaara ku soo qaateen oo yaani lacag FA Cup ka heleen oo ay ku soo ciid muwaaragaysteen yaani ciid muwaarag 30 milyan bay soo heleen oo FA Cup ka soo heleen lacagahaas oo lagu daray ciyaaryahanay iibinayaan bay Arsenal waxay ku dhisanaysaa koox adag. marka warku dambe waxay leeyihiin William way gudo galeen wada hadaladiisa wayna soconayaan ciyaartooygu uu diiday Chelsea uma saxayo wax heshiis cusub. Arsenal ayaa wada kula jirta caawa leeyahay. Arsenal waxa waxay ku dhawayeen qaadato Philippe Coutinho iyo sidoo kale Thomas Partey abiyona wal celinayaayo warka ugu dambeeyay waxay leeyihiin heshiis 250 baa isbuuci la siinaya 250 baa isbuuci la siinaya. Arsenal waxa iska dhigaya xagaga dambe wax kale oo dagaal bay galayaan. haddaba Arsenal wuxuu ku ciyaari doonaa xagaga dambe kooxda caynkan oo kala Lacazette, Aubameyang, Coutinho iyo William. Partey iyo Ceballos waya wali cad waxa wax ka qaban kara Tierney, Luis, Upamecano, Bellerin iyo Leno. hadayba Arsenal sidaas ku soo ciyaarsan dambe anigu goob halka iska dhigay ya waa markay shaxdan arkaan caawir Arsenal markay bilaabay dhihi lahaayeen xagaga dambe halka horyaalka la dhigo horyaalku sanadka dambe halka la dhigo markay dhihi jireen ba hadda bilaabanaysa caawo markay arkaan iyagoo William oo imaanaya oo Coutinho imaanaya oo Partey imaanaya oo warku Lacazette la tuurayo Aubameyang iyo William geeska kay kala marayaan Coutinho dhexda la gelinayo Partey isabisay ka dambeeyaan waa markay caawa dhihi lahaayeen horyaal xaqahana la dhigo Maxamed Qadarow ya waa markay dhihi lahaayeen wayaan waadna markaad arki lahayd horyaalka dhamaadkiisa iyagoo kaalinta afraad u dagaalamay aragna waa ay wal yaqaan bilowga horyaalka inay saas yiraahdaan laakiin markaad horyaalka dhamaan waxaad arkaysaa iyagoo kaalintoodii u dagaalayd waayisa hadda bariyaan afraad yallaa sideedaadii meelaha bay ku dambeeyeen iyo sagaalaadii meelaha ka Yurub League baasalka lagu helay. waxa kale oo miisan caawi ciyaaraha 99kii maanta oo kale ciyaar horeey ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana ku itoomay looga soo qaatay kooxda kubadda cagta Juventus isagoo laf dheerta Bruno ku ciyaaraya ayaa Arsene Wenger soo qaatay kadibna waxa laga dhigay ninka maanta uu yahay legendiga koow toban bay Arsenal ku soo qaaday 99kii waa muddo laga joogo 20 sano ka hor Henry bay Arsenal soo qaateen wixii inta ka dhamay taariikh buu sameeyo waxaana maalin dhaweed laga jibiyay record muddo 17 sano u yaalay wuxuu ahaa weeraryahanka qura ee taariikhda kubadda cagta ama xidiga qura ee taariikhda Kamaldaariga ee xilli ciyaareed soconaya horyaalada Yurub ugu weyn 20 gool na dhaliya 20 ka badan caawiya 20 gool ka badan dhaliya 20 ka badan caawiya xilli ciyaareed gudihii 17 sano ka hor kaas u yaalay maalin Messi jiriyay.